maxaa ka mid ah xanuunada ka dhalan kara caddaynta in midabka rabbaaniga la bedelo ma ahan wax hadda soo bilowday. Okay, doctor, weli ma la kulantay dad ay dhibaato ka soo gaadhay ama waxyeello ka soo gaadhay daawadan isku caddeeyo? dad badan baa jira ay dhibaato ka soo gaareen oo la kulmay. Waxa jira beeshin fara badan oo yimid kuwaas oo ilaa hadda ka daaweyno still ay beeshin yihiin ma ka daaweyno wax loo yaqaan stretch marks oo kale taasoo ay keentay dawooyinkan la isku caddeeyo. dumar kaliya isticmaala daawadan in badan dad badan baa isticmaali kara hadda female and male waa loo isticmaalaa way qaataan. intii xilligii hore waxay common ku ahaa dumarka oo kale laakiin hadda way jiraan iyaguna qaar ka mid oo ragga ka mid oo iyaguna isticmaalaya. kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aqooneedka sahal. barnaamij aqooneedka sahal waxaa maanta marti noogu ah doctor ahna khabiir ku takhasusay cudurrada ku dhaca maqaarka doctor Cabdilatiif Cumar Shaam. soo dhawaad doctor Cabdilatiif. waa mahadsan tahay injineer maxamed aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkaaga iyo casuumadaada waad ku mahadsan tahay. su-aashii koowaad waa su-aal mataqaanaa shakhsi ahaan ah sida caadiga waa kuma doctor Cabdilatiif? Cabdilatiif Cumar Warsame waa nin reer gaalkacyooda waa dhakhtar ku takhasusay maqaarka qalliimada iyo qurxinta maqaarka kana howlgala isbitaalada ku yaala magaalada Gaalkacyo una shaqeeya bulshada u adeega dhanka hadday ahaan lahayd samafalnimada iyo daaweynta iyo daryeelidda bukaanada danyarta waa weeye Cabdilatiif Cumar Warsame. waxaa nooga sheegi kartaa Cabdilatiif heerkaaga waxbarashada? heerkayga waxbarashada saan kuu sheegayba waa master. waxaan speciality-gaygu uu yahay dermatology-ga amaba waxa la yiraahdo skin-ka amaba haragga. waxaan si gaar ah ugu sii takhasusay qalliimada la xiriira maqaarka iyaguna plastic surgeon-ka iyo cosmetology-ga. sidoo kale waxaan leeyahay fellowship iyaguna ah laserka lagu gooyo waxyaalaha skin-ka abnormality ku ah. Okay, doctor, qodobka maanta barnaamijkeenu ku qaada dhigana waxa weeye bedelista kalarka jirka iyo khatarta ka dhalan karta kiimikaal ahaan. haddaan u gudubno barnaamijkeena caawa qodobka su-aalaha koowaad aan kaa weydiino waxaa ka mid ah maxaa keena gabdhaha inay jirkooda bedelaan ama is caddeeyaan? maxamed cali waa su-aal siyaabo badan loo dhigi karo ama dhinacyo badan taabanaysa. in midabka rabbaaniga la bedelo ma ahan wax hadda soo bilowday. waa waxyaalo ilaa iyo maartay 19kii ilaa wixii ka sii sheeyay la isticmaalayay wadamada hadba civilizationku uu ku badan yahay oo ama ilbaxnimadu ay soo koraysana waa marxalad la socota inaga kaliya maaha wadamo badan oo waxa jira iyaguna xaaladahaas ama marxaladaas ay haysato. in qofku uu midabkiisa u bedelana waxa keeni karta dhowr siyaabood. inuu qurux ka raadinayo oo uu isleeyahay kalarkaaga wax ka sii qurux badan ama midab ka sii qurux badan aad heshid oo markaa qofku ay ku yartahay kalsoonida iyo waxyaalahaas. iyo inay tahay ku dayasho oo ah qof baa is caddeeyay adiguna is caddee nidaamka noocaas oo kale ay waxyaabo la xiriira ayay ka mid tahay. marka marxaladahaas oo kale ayaa keeni kara in qofku uu is caddeeyo. Okay, doctor, xanuun ma ka dhalan karaan is caddeynta? ها محمد xanuuno badan baa ka dhalan kara. waxaa ka dhalan kara wax loo yaqaano atopic dermatitis. waxaa ka dhalan kara wax loo yaqaano seborrheic dermatitis oo iyaguna ka mid ah xasaasiyadaha saameeya ama ku dhaca maqaarka. waxaa ka dhalan kara khafiif maqaarka amaba thickness-ka ama awoodiisa oo yaraata. waxaa ka dhalan karna waxa loo yaqaano inuu u dulqaadan waayo environment-ga caadiga aynu ku noolnahay sida inuusan xamili karaynin kulaylkii iyo qaboobaha intaba. marka xanuuno aad u badan ayaa ka dhalan kara. waxaa kaloo ka dhalan kara haddii ay gaaraan systemka jirka ama systemic ay u dhex galaan waxay qofka la sheega inay inta badan had iyo jeer yihiin factorieska contributing gareeya ama ka qayb qaata xanuunada loo yaqaano non communicable disease-ka. inay sidoo kale inay hadday gabadh uur leedahay oo kale inay keenaan wax loo yaqaano gestational diabetic ama gabadha xilliga uurka leedahay inay sonkor ku dhacdo. waxay kaloo iyaguna la sheegaa inuu risk factor qofkaasi ugu jiro indhuhu oo kale inay ku dhacdo wax loo yaqaano cataract amaba qofku cataract wax lagu yaqaano qofku markuu age gaaro inuu ku dhaco xanuunka loo yaqaano caadka indhaha fuula.
waxa kaloo ay sameeyaan oo ku dhaca wax loo yaqaano glaucoma oo iyaduna ka mid ah in isha ay biyo ku furmaan oo kale marka xanuuno aad u tiro badan ayaa ka dhalan kara haddii la sii wado. maxaa ka mid ah xanuunada ka dhalan karaysa caddaynta? sidaan kuu sheegayba waa groupka loo yaqaano corticosteroidska. Corticosteroid waxaa loogu talagalay in lagu daweeyo inflammatoryga skinka ku dhaca amaba qalafka, xanuunada, xasaasiyadda, waxyaabaha la midka ayaa dawooyinkan loogu talagalay in loo isticmaalo. sidaa daraaddeed waxaa ku jira wax loo yaqaano agent yar kuwaas oo sameynaya smooth qofka markii laga daaweeyo xasaasiyaddii qolofta lahayd smoothka ay sameynayaan ayay dadku inta badan u maleeyaan inay ku jiraan gebigooda qurux loogu talagalay. sidaa daraaddeed ayay dadku u isticmaalaan dadkan qaab ka duwan qaabka loogu talagalay u isticmaalaya. maxaa loogu talagalay awal daawadan isku caddeeyo? waxaa ka mid ah kuwan hadda aan sheegay in lagu daweeyo xasaasiyadaha ayaa inta badan loo isticmaalaa dawooyinkan iyo wixii la mid ah ama inflammatoryga ku dhaca skinka. ma jiraan waxyaabo aan jirka dhib u keenayn oo ay ku beddelan karaan? waxyaalo badanoo waxaa jira aan jirka dhib u keenayn la isticmaali karo. huruudda ayaa ka mid ah, qajaarada nature-ka ayaa ka mid ah ee dhirta kala duwan laga sameeyey kuwaasoo aan beddeli karaynin ama awood aan u lahayn ee loo yaqaano free chemicalska loo yaqaano free chemicals oo kuwaasoo sameynaya inay qofka smoothna u sameeyaan kana ilaaliyaan waxyaalaha mataqaanaa jirka dhibka u keenaya. marka waxyaalo badan huruudii baa ka mid ah, geedo badan oo qasilkii baa ka mid ah, waxyaalo aad u fara badan oo waxaa jira kuwii la casriyeeyey oo la habeeyey oo aad loo update kariyey ayaa jira kuwaas oo la isticmaali karo. waxaa ka mid ah kuwa ay ku badan yihiin vitaminska oo kale. waxaa jira kareemo aan dhibaato keenayn sida shirkado waaweyn oo ka mid ah adduunyada ay soo saaraan Ceref iyo oo kale wax loo yaqaan Cetaphil oo kale. cleanser fiican ayaa jira oo dadku ay uga hortagi karaan hadduu qofku oil leeyahay waxyaalo badan uu leeyahay. kuwaasoo dhan waxay ka qayb yihiin kuwa aan dhibaatada u keenaynin skinka. okay doctor weli ma la kulantay dad ay dhibaato ka soo gaadhay ama waxyeelo ka soo gaadhay daawadan isku caddeeyo? dad badan baa jira ay dhibaato ka soo gaareen oo aan la kulmay. waxaa jira beeshino fara badan oo yimid kuwaasoo ilaa hadda aan ka daaweyno still ayay beeshin yihiin oo aan ka daaweyno wax loo yaqaano stretch marks oo kale taasoo ay keentay dawooyinkan la isku caddeeyo. waxaan ka daaweynaa wax loo yaqaano waxay keenaan dawooyinkaas ee la yiraahdo rosacea oo ah casaan gaduud ku dhasha wejiga oo ay aad u adag tahay qofku inuu xamilo qorraxda iyo dabka oo kale markuu environmentiga bannaanka u baxo. waxaan ka daaweynaa wax loo yaqaano xasaasiyadaha sida atopic dermatitis ama wax loo yaqaano contact dermatitis labadaba ay qaadsiiyaan. waxaan ka daaweynaa wax loo yaqaano scali amaba qolof weyn oo skinka fuusha. waxay kaloo keenaan xaaladaha noocan wax loo yaqaano erythroderma atopic dermatitis wax la yiraahdo oo iyaguna ka mid ah in skinka oo dhan uu qalalo oo mararka qaarkood si over 90% qallayl uu ku dhaco skinka ama dry uu noqdo. ciladahaas oo dhan waa ay keenaan oo way la kulmaan beeshanada noocaas. ma dumar kaliya isticmaala daawadan? in badan dad badan baa isticmaali kara hadda female and male ba intaba waa loo isticmaalaa rag iyo dumarba way qaataan. intii xilligii hore waxay common ku ahaa dumarka oo kale laakiin hadda way jiraan iyaguna qaar ka mid oo ragga ka mid oo iyaguna isticmaala iyo kulaba aysan uga badnayn inta badan ay u badan yihiin dumarku inay isticmaalaan. see looga hortagi karaa in midabka jirka la bedelo? waxaa looga hortagi karaa in wacyigelin ballaaran la sameeyo. wacyigelintaas inta badan aysan ku xirnaanin qofkii aqoonta u leh dhakhtarka ah laakiin waxaa jira qofkani iscadaynaya wuxuu ka imanayaa xaafad waalidiinta oo kale inay ka ilaaliyaan oo maaragtay ilmihii ay kala dadaalaan marxaladda noocaas oo kale inaanu samayn. dhaqaatiirtu iyo dadka aqoon-yahanka iyaguna inay sameeyaan awareness oo ah wacyigelin kaasoo looga hortagayo in ay xaaladani sii socoto oo dadku inta badan ay bedelaan taasna ay dhibaatooyin iyo xanuuno badan ka yimaadaan. waxaa la sheegaa iyada lafteeda in xanuunada ugu waaweyn hadda laga baqayo ay ka mid yihiin waxyaabaha canceriska iyo waxyaalahaas in dawooyinka faraha badan chemical reactionska kala duwan ka dhacaya iyo waddanka inagu aynu ku noolnahay oo environmentigiisu uu aad u kulul yahay inay aysan iswaafaqayn ama aysan isqaadanayn. sidaa daraaddeed ay keeni karayso in cillado iyo xaalado kale ay ka dhalan karaan. marka in awareness-ka la badiyo wacyigelinta oo bulshada laga wacyigeliyo ayaa muhiim ah. taas ayaa looga hortagi karaa
iyadoo la iska kaashanayo aqoon-yahan waalidiin iyo inta bulshada waxtarka haldoorka waa inay ilaaliyaan. yayse tahay inay ka hortagto barnaamijkan iscadaynta ama daawadan lagu bedelo kalarka rabbaaniga cid kasta oo door ku yeelan karta, hadday waalidiin tahay, hadday aqoon-yahan tahay, hadday maarata culimo tahay, hadday aqoon-yahan tahay, dadka wixii aqoontan u leh iyaguna waa inay baahiyaan oo sheegaan. intaas waa baahinayo waa sheegnaa inay dhibaato badan ay keeni karto, waxyeeladahaas oo dhan ay keeni kartaa. door noocee ayay waalidiintu ku leeyihiin ciribtirka daawadan isku caddeeyo? waxaan oran karaa doorka ugu weyn ba ayagaa ku leh, sababtoo ah iscadayntu waxa ay joogtaa lacag. lacagtana inta badan waxaa kaba waalidiinta oo ilmaha ama dhalinyarada waxaa lacagta siiya waalidiinta. ayaga laftoodu marka haddii ay ka hortagaan waxaa la oran karaa halkaas waxay jari karaan, yani bridge weyn bay kala goyn karaan ayagu oo ka joojin karaan. haddii wacyigelinta la badiyo iyo waxyaabaha ka dhalan karana waxaan filanaa in iyaduna door weyn ka qaadan karto. waxaa jira waalidiin ku dhiirigeliya ilmahooda marsashada kiimikaalka, maxaad kula talin lahayd? waxaan kula talin lahaa inaanay wax fiican ahayn. xaaladahaas aan ka sheekeynayo oo dhan baa ayay keenaysaa. yani waalidku waxaa la rabaa ilmihiisa inuu wanaag u horseedo, inuu dhibaato u horseedo muhiim maaha. marka waxaan kula talinayaa de waxaan inay wax xun yihiin. qof kastoo aqoon-yahanana wuu baari karaa ama wuu raadin karaa, dawadii bay ku qoran tahay. marka la isticmaalayo oo loo isticmaalayo ase xanuun in lagu daaweeyo ayaa waxaa la isticmaalaa muddo short time ah. oo anagu beeshinka markaan hadda dawooyinkan u qorayno oo aanu xanuun ku daweynayno qaarkood ayuu wuxuu leeyahay waqti cayiman. haddii waqtigaas ay dhaafto amaba ay isticmaalkiisu u bato, ayada laftarkeeda dhanka kale u dhaafi kartaa, cillad bay keeni kartaa. waxaad arki karaysaa qof iscadaynaya 15 sano, 5 sano, 8 sano, 10 sano, 20 sano in ku dhow. qofkaasoo kale waxaa la oran karaa dee cimrigiisa qayb ka mid ah ayuu jirkiisiina cunay ayaa la oran karaa. marka muhiim weeye in arrintaas laga hortagaa waalidiin iyo aqoon-yahan. waa maxay falcelintaada adigu kala kulanto shakhsi ahaan markaad ka wacyigelinayso dadka masada daawadan isku caddeeyo? falcelin badan baan kala kulmaayo oo aad fara badan. hadday tahay beeshinka hadda markaad u sheegto oo kale ama gabadha aad isku tiraad marxaladani inaad iska daysaa habkan, waxay oranaysaa waxa weeye qurux baanu ka raadinaynaa, markaa ma joojin karno, ama way igu adagtahay inaan joojiyo, ama haddii aan joojiyo waan madoobaanayaa, ama haddii aan iska daayo waxa weeye jirkaygaa la qabsadayoo xanuuna iga soo baxay ama nabro iga soo saaraya haddaan joojiyo. marka falcelin badan oo aad u qosol badan ayay leedahay una khatar badan. mararka qaar qofku wuxuu oranayaa hadda ma joojin karo oo waa sidii laygu bartay. haddii lay bartayna waxa weeyaan anigoo waxa lay bartay cad, haddii aan joojiyo marka waxaan noqonayaa qof madow oo aniguna waa markaa dee waxaan noqonayaa laba qof baan kala noqonayaa. marka qaar waxay leeyihiin haddaan joojiyo xanuun ayaa igu imanaya oo nabra iga soo baxaya, ama haddii aan iska daayo sidii aan u baahnaa ma noqonayo. marka falcelin badan bay leeyihiin inay sheegaan maaragtay markii laga wacyigeliyo. laakiin hadde waxaa muhiim ah wixii reality-ga qofka in lagala hadlo oo loo sheego oo la yidhahdo waxaan dhibaatadaasu leeyahay. haddii aadan joojinna marxalada ka waaweyn oo hadhow aadan waxba ka qaban karin ayaa imaanaya. haddana waxaynu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena. doctore, maxaad adigu kula talin lahayd dadka bedela kalarka jirka ama iscaddeeya? mawduucani waa mawduuc muhiim ah. waxaan kusoo xirayaa ama kusoo gabagabeynayaa qofka kasta oo isticmaala, dadku laba qaybood ayay u kala baxaan. waa qof wixii garanaya oo asagu sidaa ku isticmaala, iyo qof jahil ka ah oo waxa weeyaan aan garanayn marxaladda iyo dhibaatada ka iman karta xaaladda tan. kan aqoon-yahanka waxaa laga doonayaa inuu asagu baaro oo waxaan uu raadiyo amaba uu investigation fara badan uu ku sameeyo, uu tixraaco marxaladda iyo waxyaalaha ka dhalan kara. kolley haddii uu muddo dheer isticmaalay uu hayaa qayb ka mid ah yani side effectigeeda ama dhibaatooyinka ay leedahay. kan kale ee jaahilkaana waxaa la rabaa qofka kale ee garanaya inuu kaas gaarsiiyo in xaaladda tani ay xun tahay. marna qofka aan looga fiicnayn midabkiisa rabbaaniga ee ilaahay uu ku abuuray. maxaa yeelay qofku hadduu iscaddeeyo
waxaa halkaas ka muuqanaysa qofkaas in kalsoonidu ay ka maqan tahay marka kalsooniduna waa shay muhiim ah oo qofka bini aadanka de naftiisa uu wax ku qabsan karo marka waxaan kusoo gabagabeynayaa marxaladda tani ama xaaladda tan iscadayntu waa xaalad aad u adag aniga waxaa iga soo maray cases aad u fara badan ama dad badan oo aan la kulmay oo dhibaatooyinkaas qaba marka qaar baan la daweyn karin qaar baa waxa keliyuhu fariisteen qaar bay ku keentay waxa loo yaqaano in xididadoodii iyo jirkoodiiba markii dhaawac gaaro ay ilaa hadda aysan bogsan markii nabar gaaro oo waxaa la yiraahdaa dhammaan dawooyinka corticosteroidka oo dhan waxay yareeyaan wax loo yaqaano healing processka ama waxa la yiraahdo delay wound healing ayay keenaan ama inay dib u dhigto nabarkii bogsanayay xataa markuu nabarka ku dhaco haddii la damco in la daweeyo bogsashadii qofka normalka ah muddo kooban oo qofku ku bogsan lahaa sida bil 20 beri 10 beri asaga waxa laga yaabaa inay qaadato sanad nabarka kaliya oo gaaray taasina waxa keenaysa in jirkii uusan si property u shaqeynayn ama sidii awal loogu talagalay inuuna u shaqeynayn maxaa yeelay waxaa yaraaday oo atrophy ku dhacay skin thickness-ki oo kale yacni skinku wuxuu u qaybsamaa 3 layerka koowaad waxa la yiraahdaa epidermis layerka labaadna waxa la yiraahdaa dermis kan saddexaadna waxa loo yaqaanaa subcutaneous ayaa la yiraahdaa epidermisku waxa weeyaan waa halka ugu horeysa shaqada jirkeena ugu badan ay ka dhacdo waxyaalo badan ayuu inoo qabtaa wuxuu marka ugu horeysa uu inaga difaacaa waxa loo yaqaano waxyaabaha againstiga ku ah sida infectionka bacteriyada inaana jirkeena wax gelin ayuu ka hortagaa marka ugu horeysa qofku bahashan uu bilaabana dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacdaa layerka koowaad ee la yiraahdo epidermiska kaasoo ay ku keenta marka inuu khafiifka faraha badan ee ku dhaca ayaa hadhow uusan awoodi karin inuu bacteriyada iska difaaco iyo inuu bogsashadii dadajiyo labadaba ma awoodi karo oo waa kan khafiifayo atrophy uu ku dhacayo oo haddaad u fiirsato dadka aadka isku cadeeyo muddada dheer isticmaalayay gacmahoodii lugahooda waa dhuuban yihiin sababtuna waxa weeye yani in atrophy uu ku dhacay oo ay khafiifeen ama ay dhuubteen ayaa la yiraahdaa marka si caam ah yani xaaladani waxay ku dhacaysaa skinkuna hadee waa waxa la yiraahdaa waa organka ugu ballaaran jirka bini aadanka waa the largest organ waana organada shaqooyinka badan ayuu ka mid yahay hadee inuu wuxuu ku qaban kara waxyaalo fara badan inuu environment-ki ku controlo inuu cooling ku sameeyo oo ku qaboojiyo inuu ka difaaco infectionska waxyaalaha banaankaaga imanaya inuu yahay skinku display oo de uu soo bandhigo wajigaaga oo waa halka la iska aqoonsado haddaan skinku jirin ama lagu baabi'iyo wajigaaga ama haddii dab kaaga dhaco kale hadda laguma garanayo sababta waxaan lagu garanaya waxa weeye skinku waa waxa kaliya inuu isku aqoonsan karno oo qofka kale u garanayo oo suuradda iyo midabka inoo sameeyo haddii la bedelo marka cilad weyn baa ka dhalan karta oo dhibaatooyin ah dhibaatooyinkaas aan soo sheegay oo dhan waxa weeyaan way ka iman karaan sidaa daraaddeed in la ilaaliyo oo la joojiyo xaaladaha iscadaynta oo ayna fiicnayn ayaan ku baaqayaa aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkayga